ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa si cad u shaaciyay in madaxda dawladda federaalka ay ka aqbaleen in Soomaaliya lagu biiriyo Itoobiya. Hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa inooga waramaya wariye Cabdifataax Maxamed Qaasim. cabdisamed waxa 24 saac ee ugu dambeeyay baraha internetka gaar ahaan baraha bulshada ay ku xiriidho aad ugu baahay hadal cad oo uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo uu ku sheegayo in Soomaaliya iyo Itoobiya ay yihiin dal qura. si ahaan hadalkan ma ahan mid cusub oo waxa uu jeediyay sida la xaqiijinayo maalmo kadib markii uu yimid magaalada Muqdisho isla markaana uu madaxweynaha dawladda federaalka ka saxiixday 4 dekedood oo ay Soomaaliya leedahay. laakiin hadalkan isaga ah xilligaasi lama baahin oo kaliya waxa uu jeediyay mas'uuliyiinta Itoobiya, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, goortaas oo uu si cad oo faahfaahsan ugu sheegay inuu guulo uga soo hoyay madaxda dawladda federaalka ah ka soo saxiixday 4 dekedood iyo in Soomaaliya la gumeeyo oo la hoos geeyo magaalada Addis Ababa. marka goortaas Itoobiyaanku waxay baahiyeen in yar oo kamid ah hadalkaasi oo ahaa Soomaaliya iyo Itoobiya waxay ka midoobayaan xagga dhaqaalaha iyo hadallo ka agdhow. ha yeeshee xilligan ayaa waxay ku soo beegeen inay baahiyaan hadalkii oo aan kala go' lahayn oo dhammaystiran. ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu warkan ku leeyahay ያደረግነው ቆይታ ከሶማሌው ፕሬዝዳንት ከሶማሌው ጠቅላይ ሚኒስትር ከአፈ ጉባኤው እና ከአጠቃላይ ካቢኔው ጋር እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ ህዝቡን የምናገናኝበት የምናቀራርብበት ወደ እውነተኛ ኢንቴግሬሽን ወደ አንድነት የምናመጣበት ደስለ ኡይሪ waxa la kulmay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo afhayeenkii iyo gurihii wasiirada macnaheedu waxa weeye dawladii oo dhan xubnaheedii kala duwanaa waa kulmay xukuumadii iyo madaxweynihii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarihii uu la kulmay marka ayagiibu baan ku qanciyay buu leeyahay inaan hal dal oo midaysan in la noqdo. dadka warkan falanqeynaya oo qaarkood ay ka mid yihiin kuwa yaqaan afka xabashiga waxay sheegayaan in madaxda dawladda federaalka ay ummadda Soomaaliyeed ku sameeyeen qayaano qaran tii ugu weyneed ee abid ee soo marta dalka. maxaa yeelay bay leeyihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya xaqiiqada ayuu ku hadlay, dadkiisa wuxuu u sheegay runta, laakiin madaxda dawladda federaalka ah intay iibiyeen dalka ayay iska aamuseen. horey waxa loola socdaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya mar uu la hadlayo qowmiyadda Uraagada isla markaana ay ka dalbanayeen in wax laga siiyo xukunka. waa tii uu ku yiri waxaad ka fakaraysaan meel hoose, anna waxaan doonayaa markaan furanno magaalada Muqdisho inaad halkaasi ka soo shaqaysataan oo aad Axadda iyo Sabtida dib ugu soo laabataan dalka. waxa kale oo ka sii horeeyay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay muddo 2 goor ah baahisay sawir ay samaysay oo ay ku muujinayso qariidada Soomaaliya oo la baabi'iyay isla markaana lagu furay dalka Itoobiya. markaan u soo laabanno waxa laga yiri tallaabada ay madaxda dawladda federaalku ku iibsadeen oo ay ku bedesheen heshiiskaasi waxa weeyaan in Abiy uu xiriirka u jaro maamul goboleedyada si uu farmaajo ugu ekaado madaxweyne Soomaaliyeed oo heer qaran ah. qodobka labaad wuxuu yahay in Abiy uu u soo diro dawladda federaalka ah ciidamo Itoobiyaan ah gaar ahaan goorta ay soo dhowdahay doorashada ama waqtiga uu ka dhamaanayo madaxweynaha oo isagu ka baqaya kacdoon iyo culays uga yimaada bulshada iyo xataa dhinacyada ay sayaan. durbadiina arrintaasi cabsideeda ayaaba soo muuqanaysa iyo xaqiiqdeeda waa tii uu shalay Shariif Sheekh Axmed aad u qeyladaamiyay oo uu yiri wasaaraha Itoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ilaa xad la gaarsiiyo isku dal noqonayna. marka isku dal intaan naqanin waxa fiican annagoo 2 dal intaan wada hadalno oo mashaakilka dhexdeena ay ka heshiino kadib inaan gudubno. waxaan la soconaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada Amisom oo dawladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dambiyo. arrintaas waa arrin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada Amisom keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada Amisom. ciidamada Amisom waxay sameeyeen sacrifice, sidaas darteed golaha amniga UN-ka African Union waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas in si degdeg ah looga saaro dalka, falalkii ay geysteenna lagu xisaabiyo sharciga loo keeno. si guud ahaaneed laakiin cabdisamadow mashruucan waxa wata dawladda Mareykanka oo Itoobiya ku taageeraysa inay liqdo gabi ahaanba Soomaaliya. sidaasi waxa saxaafadda u sheegay Professor Yaxya Sheekh Camir oo ah siyaasi xoggaal ah oo u soo shaqeeyay qaramada midoobay isla markaana haatan ku sugan magaalada Muqdisho. waa qorshe horta markii soo Yamamoto u waday
Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti iyo Ethiopia inay midoobaan arinkana Addis Ababa ay xarun noqoto bariyahan waxaa muuqata inuu dardar gelinayo Abiy Ahmed doorashadiisa soo dhow laftiisa doorashada ka hor inuu 4 dekedood tago oo qorsheysan ay kamid tahay Kismaayo waxaa jirta lacag 9 bilyan ah oo loogu talagalay isbahaysigaas uu hirgalay in lagu bixiyo wada ka bilaabanayso Boosaaso mid beledweyne ka bilaabanay iyo mid kale oo ka bilaabanayso Baydhabo saddex suul hadii la qiyaas lacagta ku baxaysana 10% waxay ka tahay out of 9 bilyan kaas ololahan marka hadda wax dejinayo oo Ethiopia ay aad u soo faragelinayso sida muuqato oo meel kasta ciidamadooda ay joogaan iyagoo amisom oo dhowr jeneraal Ethiopian oo ka tirsanay xataa amisom ay gudaha joogaan waxyaabahaas oo dhan waxay sii fogeynayaan halkii laga sugayay in Soomaaliya Ethiopia laakiin hadiiba ay midoobaan ka soo qaad oo la yiraahdo hal baasboora ka dhaxay saareen naqala waxa oo dadka lagu laabkaciyo meeqa milyan oo qof ay yihiin iyagoo aan kula meeqana maxaan ka faa'iideynaa iyagoo maxay naga faa'iidayaan yaa ku dhumay waxay naqaleen nin oo haystay $100 oo ku darsaday shirkad Hormuud $100 awoodna ma laha codna kuma laha laakiin waxbaan ku leeyahay oo iska dhigi kara marka isbaaysigaas hadaan si miisaaman aan looga fikirin karaashka ay ku socdaan ay ku socoto waa wax khasaare ay ugu jirto Soomaaliya sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warramay waxyaabaha raqiista ah ee ay dalka siisteen madaxda dawladda federaalka villa Soomaaliya ciidana waxay jeceshahay inay meesha iska sii fadhido ee adiguna ciidan isoosi oo aan gudaha dadka Soomaaliyeed aan ku caburiyo oo iyo xooga sidii ka dhacday Baydhabo oo kadib lagu sameyn doono expansion dadkuna ay u maleeyaan inay meeshaas ku arkaan doonto ciidamada Etoobiyaanka iyo dadka Soomaaliyeed inay xoogaan ciidamada Etoobiya waa loo isticmaali doonaa waqooyiga Soomaaliya loo isticmaali doonaa waqooyi bariya loo isticmaali doonaa Kismaayo loo isticmaali doonaa sababtu waxay tahay strategic interest oo leeyahay Obaye iyo dadkiisa ayaa wuxuu galaa dalka Soomaaliya in la xoogo oo lagu xoogo mashruucaas asaga ah aan bareelo guud waxa u ah Mareykanka ugu dambeyntii baraha bulshada internetka ayaa aad looga hadalhayaa warkan dhameystiran ee faahfaahsan ee ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo uu ku sheegay in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada oo wada fadhiya ay u saxiixeen in Soomaaliya la gumeeyo oo la hoosgeeyo Ethiopia